madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka degay qaar fara badan oo wadamo dunida iyadoo oo la sheegay aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland inay qarka u saaran yihiin tiraba laba wadan oo ku kala yaal qaaradda Afrika iyo Yurub. Sidoo kale madaxweynaha dalka Taiwan ayaa soo gaaray wadanka Iswiitiin ee qaaradda galbeedka qaaradda Afrika. haddaba Iswiitiin lafteeda ayaa laga sheegisay in madaxweynaha Soomaaliland laftiisu kula kulansan yahay bartaas iyadoo Iswiitiin laga dhaadhicinayo sidii Soomaaliland ay u aqoonsan lahayd oo ay u badheeri lahayd mar kale. Haddaba barnaamijkeenan ayaynu ku falanqayn doonaa iyadoo dalka Turkiga warbaahintii ama sirdoonkiisu uu aad ugu mashquulsan yahay sidii uu u heli lahaa xogaha safarka qarsoon ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. barnaamijkan ayaynu ku falanqayn doonaa ilaa dhamaadka kusii sheergaree lana wadaaga asxaabtaada kuna soo birbirahayna bulsho sida YouTube, Facebook iyo TikTok iyo Digaal TV. aan ku bilowna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa kii tagay dalka Imaaraat ilaa iyo hadda lama garan karo meel uu jaan iyo cidhib dhigay xataa warbaahinta Soomaaliland xitaa kuwa ugu dhow ma garanayaan. haddaba sida ay soo xiganayso Africa News 24 ayay soo xiganayeen xitaa telefishinka qaranka warbaahinta dawan soo turjuntay iyagoo xataa warbaahinta Soomaaliland xataa wasaaradaha ugu dhow aanay warkahayn meel uu maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa la sheegay hadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo sidoo kale safar hore oo lagu eedeeyay inuu lumay laakiin soo hooyay guul weyn xilligaas uu ka degay dalka Israa'iil keenayna aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland. haddaba madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa la leeyahay waxa uu ka degay dhowr wadan oo kala duwan. sidoo kale intaanu dalalka tagin dowladda Imaaraatku waxay fududeysay iyadoo in ay halkaas kula kulmaan safaarado wadamo aad u fara badan. wadamadaasi oo ay ka mid yihiin Bangladesh, Hindiya, Japan, South Korea, Indonesia iyo xitaa Morocco wadamo aad fara badan laakiin qadiyadda Israa'iil iyo ka soo horjeedka Shiinaha iyo Turkiga iyo waxyaabahaasi marka loo eego waxa la yiraahdaa siyaasadda dunidu sida ay isku hayso. haddaba arrintu marka ay halka marayso madaxweynaha Soomaaliland waxa la leeyahay inuu ka degay laba wadan oo uu si qarsoodi ku tagay ilaa hadda. wadanka 90% la aaminsan yahay inuu aqoonsiga Soomaaliland dhameystiray koobaad ayaa noqonaya inkastoo la leeyahay si wada jira ay labada dal ugu dhawaaqayaan. laakiin wadankaasi waxa weeyaan wadanka Greega. wadanka Greega waxay aad iyo aad colaad aad u weyn ay ka dhaxaysaa wadanka loo yaqaano Turkiga. sidoo kale waxay xulafo xoog yihiin dowladda Israa'iil waxaanu ka mid yahay midowga Yurub. haddaba wadanka Greego waxa la leeyahay waxa uu aqoonsanayaa Soomaaliland. shuruudaha uu ku xidhay Soomaaliland waxa ka mid ah markay sakaashiga waxyaabaha laga tago hal sharti oo muhiim ah oo in ay xidho qunsuliyadda Turkiga dhammaan saarta shaqaalaha Turkiga wax xidhiidhana aanay la yeelan dalka Turkiga. maadaama oo Turkigu uu Soomaaliya uu siiyay awoodda ugu badan dhaqaale siiyay waxyaabo fara badan siiyay awoodo fara badan hubkiisa ku tijaabinayo Greego ma fadhiyo awoodda inta laga intuu Turkigu yeelanayo maadaama yihiin laba dal oo colaad ahaan aad iyo aad iskuna haysta meelo fara badan siyaasad ahaan iyo mararka qaarna qarka u saarba in uu dagaalba dhexdooda ka qarxo. haddaba dowladda Greego maadaama oo Soomaaliya awoodii saaray waxay tiri waa in anaguna Soomaaliland aanu saarnaa Israa'iilna garab istaagnaa Soomaalilandna la yeelana xulafo si aanu bartaa ugu yeelano istiraatiijiyad fiican. wadanka kale ee labaad ee leeyahay waa la isku hayaa wadamo dad badan waxay leeyihiin Ghana ma Ethiopia ma Kenya adigu 100% muu soo bixin laakiin marka la falanqeeyo waxa leeyahay Ethiopia lafteeda aad bay u wada hadleen iyo Soomaaliland intii ay ma aragtay dowladda Imaaraatku maadaama oo arrimahaas ay xiriirisay Ethiopia waxyaabo fara badan bay markaa leedahay iyadoo horta Ethiopia waxay ka soo kala go'i laadahay Shiinaha oo dhaqaale fara badan geliyay iyo dhinacan kale oo reer galbeedkii Israa'iil Mareykanka waxyaabo mar walba ku cadaadinaya hadda doonayso inaad badgaadho ama Soomaaliland saldhig ku yeelato waa inaad samaysaa Shiinaha iyo waxyaabahan ka soo go'da. taasi oo iyadoo Ethiopia may diidin aqoonsigii Soomaaliland manay ogolaan manay cambaarayn manayna odhan ka soo horjeednaa inkastoo oo warbaahintoodu markii hore taageertay haddana laakiin aan si toos ah loo wada shaacin. dhanka kale waxa la leeyahay wadanka Iswiitiin oo ah dalka kaliya ee qaaradda Afrika ku yaala ee aqoonsan dowladda la yiraahdo Taiwan
waa kii markii hore dowladda Taiwan isagoo madaxweynaha dalka Taiwan uu doonayay inuu tago waa kii wadamo fara badan oo ay ka mid tahay Seychelles maaragtay Maldives oo ay diyaaradiisi dulmari lahayd maadaama badweynta India tahay badweyn aad u weyn oo diyaarado haddii ay wadamada isticmaalaan inay dulmaraan ay adag tahay ama la lumi karaba wadankaasi kuwaas diiday cadaadiska Shiina hadda maanta waxa laga war helay isagoo jooga uu madaxweynaha dalka Taiwan Eswatini maxaa keenay waxa la leeyahay wuxuu ka faa'iideystay siyaasadda uu ku dhaqmo madaxweynaha Somaliland oo Ahmed Qarsoon oo safaradiisa la galeenay halka uu duula halka uu ka soo degay meel kale haddaba waxa la leeyahay safarka kale Eswatini ma iman doonaa madaxweynaha dalka Taiwan Somaliland wuxuu yiri saaxiib sida uu ku soo qoray isagu bartiisa X ama Twitter anagu saaxiibadayada Afrika buu leeyahay markasta oo uu taganaa Shiinuhuna nama soo garab istaagi kara yacni nama kala aqbalin Shiinuhu markaa wuxuu isleeyahay imka aad u cadaadinayaan Somaliland tagin isagoo cadaadis ku saaraya Soomaaliya Kenya Ethiopia Djibouti in ay diyaaradihiisu soo dulmaraan laakiin taas way dhib yartaayo xitaa wadamada haddii aanay xataa dulmarin way tagi karaysaa maadaama Afrika joogo okay haddaba waxa la leeyahay taasina ma ka hor istaagaysa haddii uu madaxweynaha Taiwan haddaba waxa la leeyahay madaxweynaha Somaliland halkaas aba lagu Somaliland Eswatini halkaas lagu soo shiilayaa aqoonsiga in bisha May hal mar lagu wada dhawaaqo waxa loogu yeero Greega Eswatini iyo dalalkii kale la soo raacin karo haddaba waxa la leeyahay markay intaas dhacdo dowladda Imaaraadka saddexaynaysa labadaas markay ku dhawaaqaan Israa'iilna ay hore u jirtay wax hor istaagi kara waxa la leeyahay Carabtana adigu ugu horeey Imaaraadku maadaama Xasan Sheekh ka eriyay Turkigu awoodda saaray ku yiri maxay tooyeen iska eri Imaaraadka Soomaaliyana ay aayar ogolaatay Somaliland wax badan gashaday saaxiibka ugu wanaagsan uu yahay aqoonsigan oo isagu la wado warbaahinta marka loo eego Imaaraadku ay aad u falanqeynayso meel fog gaarsiinayso adyaaba saddeysay wado ayaa hadaba waxa la leeyahay wadanka kale ee ku sii xigaya isna waa Imaaraadku wuxuu balaalaynayaa ama uu bilaabaya dawladda Carabta Morocco oo iyadu Abraham Accords ku jirta waxyaabo badan ay u fududeysay ayaa iyada la diyaara sida xiriirada fiican ay dhexmareen Bahrain iyo Kuwait iyo Jordan oo la filayo haddii Imaaraadku uu ka horeeyo iyaguna inay si isdaba jooga hal mar si aanu shir Carab iyo shir Islaamba ugu dhicin in dig laga siiyo taasi waxay markaa fududeynaysaa in sanadkan gudihiisa ilaa 20 dal ama ka badan ay aqoonsan doonaan Somaliland ayna ka mid noqon doonto Somaliland mid ka mid ah wadamada dunida halkaana ay ku dhamaan doonto wixii loogu yeeri jiray meydkii lugta ugu xidhnaa 34 sano Somaliland silsiladaha laga goynayo dowladda Israa'iil markii ay soo ansixinayeen shirka golaha wasiirada lagu ansixinayay safiirka loo dirayo waxay isla garteen sidii Somaliland ay u heli lahayd aqoonsi buuxda Israa'iil ciyaar maaha iyada ka shaqeysay wadamada ugu fara badan ee imka dunida kala go'ay casriga ah oo ay ka mid tahay xitaa South Sudan dadkii fududeeyay dowladihii fududeeyay bay ahayd Somalilandna waxa la filayaa inay dhammaystiri doonto maadaama oo wiiga soo socdan la filayo in Netanyahu Mareykan tagayo waxyaabaha uu kala hadlayo marka arrinta Iran miiska ay saaran tahay arrinta labaadna ay tahay arrimaha aqoonsiga Somaliland iyo sidii saldhig buuxa Mareykanka iyo Israa'iil ba uga dhisan lahaayeen dalka Somaliland dagaalkii Iran wuxuu qiimaha kor u sii qaaday istiraatiijiyadda dhuleed amniyeed iyo geopoliticska waxa ay leedahay berbera ama Somaliland taasina waxay sii qaaliyeynaysaa qiimaha Somaliland oo wadamo fara badan oo kolkii hore cambaareeyay ama ka hor yimid aqoonsigii hore Somaliland markan dambe safiirka la soo diray ay ka aamuseen ama aanay ka horeyban taasna waxaad ku garan kartaa in Mareykanka laftiisu wadada ku soo jiro oo dalalkaasi raba inuu isku horeysiyo kadibna isagu shaambada weyn ugu dhufto Trump inta xilliga xileedkiisu sida uu sheegay Ted Cruz oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Mareykanka oo isagu aad ugu ololeeya dadka ugu dhadhow Trumpna kamid ah Soomaaliland way guuleysanaysaa laakiin arrinta jirta waxay tahay in sirdoonka dowladda Turkigu aad ugu daba jiro safarada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya taana waliba qunsuliyadda dalka maaragtay qunsuliyadda Somaliland inkastoo ku dabaqday oo
wasaaradihii dowladda garan la meel u maraya madaxweynaha Somaliland laakiin haddana sirdoonkooga haday kuwa imaaraadka tahay in wixii meel walba ka jooga sirdoonka dowladda Turkiga waxay ku mashquulsan tahay oo kharashkii ugu badnayd iyo waqtigii ugu badnaa gelisay sidii ay u heli lahayd madaxweynaha Somaliland meeluhu maray safarada laakiin ilaa imka dawladda waxaan filanaa dhawaan in la xiri doono markuu madaxweynaha Somaliland soo noqdo inuu qasuuliyadda ay erigi doono Turkigana uu albaabada u xiri doono intaa kadibna waxa la yiraahdo Somaliland si toos ah oo Greek iyo wadamo badan ugu dhawaaqi doona barnaamijka shaargale la wadaag saxaaftada aad iyo aad baan ku salaamaya